waan ku salaamay daawade kusoo dhawo muuqaalkan maanta waan kaga hadli doono Taj Mahal. Taj Mahal waa dhisme ku yaala waddanka Hindiya gaar ahaan magaalada Agra. Taj Mahal sidoo kale waxaa loo yaqaanaa qasriga boqortooyooyinka iyo xabaalaha jacaylkii boqorkii Shah Jahan. Waa dhisme aad u qurux badan oo ku yaala Hindiya gaar ahaan magaalada Agra. Waxa uu xagga midig ama xagga koonfureed ka xiga webiga Yamuna. Waxa uu ka samaysan yahay dhagax adag oo adkaysi u leh cimilada iyo wacyiga adag, kana dhigay ilaa maanta mid qurux ku dhintahay isla markaana soo jiita dalxiisayaasha. Taj Mahal waa tusaale qurux badan oo ay ka tageen Mongoolkii hore. Amarka lagu dhisay qasrigan waxaa lahaa boqorkii Mongoolka ee Shah Jahan. Sababta ka dambeysay waxaa la xidhiidha qiso jacayl oo dhex martay isaga iyo amiiradiisii Arjuman Banu. Haddaba si aan u ogaano qisada ka dambaysa Taj Mahal dhisitaankiisa, wax yar ka ogaan qisada jacayl oo dhex martay Shah Jahan iyo Arjuman Banu. sanadku markuu ahaa 1612kii amiir Shah Jahan oo jiray 16 sano isla markaana ah wiilka yar ee loo diyaarinay boqortooyada ayaa maalin isagoo dhex socda suuqa ayaa u arkay gabadhaasi oo qurux joog jamaal hanaan socod iyo dhaman quruxsanba leh. gabadhaasi waa Arjuman Banu. waxa uu weydiiyey ilaaladiisii gabadhan cidda ay tahay. waxa ay ugu jawaabeen waa Arjuman Banu waxaana dhalay la taliyaha boqorka oo ah aabihii. amiirkii yaraa ayaa waxa uu orod uga tegay aabihii boqor Jahan waxaana uu sheegay inuu gabadhan jeclaaday una rabo in lagu daro. boqorkii waa uu ka aqbalay dalabka inankiisa yar waana loo doonay. Arjuman waxay noqotay qof ka tirsan boqortooyada. 3 sano kadib Arjuman Banu waxa loo raray qasrigii weynaa ee uu deganaa boqorkii weynaa. maalmo kadib dagaal ayaa ka dhex bilaabmay boqortooyadii kaasi oo u dhexeeya boqorada cusub iyo eedadeed oo lagu magacaabo Nur Banu oo isla markaana ahayd xaaska boqorka weyn. sababta dagaalkan xagga dambe ayaan ka ogaan doonaa. muddo ayaa uu dagaalkani socday heer ay gaadhay in boqoradu ay isku dirto wiilka iyo aabihii, laakiin waxay rabtay suurtagal uma uu noqon oo dagaal dheer kadib wiilkii yaraa ayaa ku guulaystay boqortooyadii waxaana uu la wareegay qasrigii weynaa ee boqortooyada halkaas oo uu raray xaaskiisii Arjuman Banu. waxa uu magaceedu u bedelay Mumtaz Mahal. qasrigani waa halka ay eedadeed u dagaalamaysay maadaama ay rabtay in wiilkeedu noqdo boqorka. Mumtaz waxay noqotay xaaska kaliya ee hanatay boqorka misana qabsatay qalbiga Shah Jahan. waxay u ahayd xogayihiisa, la taliyihiisa, xaaskiisa iyo sidoo saaxiibkiisa aadka ugu dhow. muddo 19 sano ay isqabeen. Mumtaz waxa ay dhashay 14 caruur ah kuwaas oo kala ahaa 7 hablood iyo 7 wiil. haddaba markii ay dhalisay wiilkayga 14aad oo loogu magacaabay Guhara waa ay geeriyootay. geerida xaaskii uu aadka u jeclaa boqor Shah Jahan aad u damaqday, aad ayuuna uga murugooday, taasi oo sabab u noqotay dhismaha Taj Mahal si uu u muujiyo jacaylka uu u qabay xaaskiisii. waxa uu ugu magac daray qasrigan magaceega oo ahaa Mumtaz Mahal, laakiin muddo kadib waxaa loo bedelay magaca dhismahan Taj Mahal kaasi oo ilaa maanta la yidhaahdo Taj Mahal. dhismahan waxaa ka qayb qaatay dhisitaankiisa 2,000 oo shaqaale iyo 1,000 maroodi oo soo qaaday dhagaxaanta laga dhisayay kuwaas oo laga kala keenayay China, Hindiya laftarkeega iyo Iran. dhismahani waxa uu leeyahay 4 minaaradood kuwaas oo qurxiya isla markaana ah kuwa dheelitiraya dhismahan waxa kale oo uu leeyahay beer weyn oo ay dhex marto barkad lagu magacaabo Kawsar. kadib markii uu dhintay boqorkii Shah Jahan waxaa lagu aqaasay xaaskiisa Mumtaz waayo isaga ayaa dardaarmay in lagu aqaaso. haddaba dhismahani oo ah dhismaad ugu qurux badan isla markaana Hindiya sabab u noqday in ay soo jiid dalxiisayaal badani. dadka ugu caansan ee soo booqday dhismahan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore Mareykanka Bill Clinton iyo xaaskiisii Hillary Clinton. sidoo kale waxaa soo booqday madaxweynaha haddan jooga ee waddanka Ruushka Vladimir Putin iyo xaaskiisa. daawada waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan la wadaag asxaabtaada